الحديث الثالث حديث كصدحاتنا عن أنس بن مالك. أنس بن مالك وحال قوري رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سوعي تصحروا سحورتا فإن في السحور سحورتا دحديدي بركة باكو سغان بيري. أنس بن مالك وحو رسولك شيغين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سوعي تصحروا سحورتا بيري فإن في السحور سحورتا دحديدي بركة باكو سغان بيري marka ana ku isticmaalayno hada ogow sida badan ba soomku yuusan ka adkaan iyo yaadan gaajoon iyo yaadan oomin iyo waxyaalo kale ma isticmaalnahay qofka marka ka maarmo oon iyo gaajo midna ka cabsanaynin ayada dhan uu iska dayn karaa waxa looga jeedana rasuulku wuxuu ku sheegay salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi baraka iyo khayr raadin inay tahay suxuurta sideedaba waxa loo isticmaalaya baraka iyo khayr raadin inay tahay ayuu rasuulku ku sheegay salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi sababka loo isticmaalayo marka isticmaalaysa niyadu ka noqon soomku yuusan ka rayn iyo oomin iyo gaajoon iyo hadii xataa aad ka kaaftoonto galaas biyaha aad la niyeysanayso aad macnaa la niyeysanayso in baraka ka hesho ilaahi subhanahu wa ta'ala baraka samaawiya oo kaasiyo ku suxuura biiru giran sidaas rasuulku ku leeyahay salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi fa inna fi suxuuri suxuurta dhexdeeda barakatan baa ku sugan. الحديث الرابع حديث أفردنا عن أنس بن مالك وحال قوري أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت وحكوري رضي الله تعالى عنه قال زيد بن ثابت ويلي تصحرنا وان سحورنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك معي سايان سحورنا ثم قال ثم قام بعده واستاغي الى صلاه حقيده يسوتاغي قال انس وحيري قلت وحان لزيد وحان كويري كم كان إن ساعها بين الآذان آذانك وسحور تدعوه. قال زيد بن ثابت مركاوي حيري قدر 5 كان وحاها قدر 50 آية كمتم آيات قدر كود بعها بيروي. حديث كان هو صحابي كورني صحابي روى عن صحابي وحي لديه علماء المصطلح يديه جيران. أنس بن مالك وحال قوري رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت صحابي قاس كلاته زيد بن ثابت وحو كوري قال زيد بن ثابت انه يتسحرنا وان سحورنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسولك قضيه اوسن اسغو markaas uusan xaadir ahayn bay ahayd ninka la yiraahdo Anas ibn Malik safar baana lagu jiray marka tasaxarna waan suxurnay مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسولك سمعيsan suxurnay bi ثم قام رسولكم markaas uu istaagay salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi ila salaat markii aan suxurtii dhamaysanay ayaa markaa salaadii la arkay marka la arkayna waa la aadaanay waa la aqoonay salaadiina rasuulku uu isu taagay intaas u dhaxaysa ثم قال markaasuu wuxuu yiri Anas ثم قال أنس wuxuu yiri قلت وحنا لزيد شيخي زيد بن ثابت صحابيgaas waxaan ku yiri كم كان إمساعيد بين الآذان آذانك وسحور سحورته آذانك markii suxuurta markii afka laga qaaday iyo markii inta salaada loo jeeday la suxuurtay salaada markii inta loo jeeday la aadaanay sulxiga dhalashadiisii markii inta loo jeeday la aadaanay iyo markii suxuurta afka laga qaaday imisa u dhaxaysay maana qadar imisa leeg qaal markaas wuxuu yiri Zayd ibn Thabit qadru 50 aayatan qadru 50 aayatan konton aayadood in la eg ba u dhaxaysay biri macnaha konton qadru qiraa'ati 50 aayatan baa loo jeedaa konton aayadood oo mu'tadil ah oo aayaad aad u dheer kuwa quraanka ugu dheerna aan ahayn kuwa quraanka ugu gaagaabanna aan ahayn kontonka aayadood inta la aqriyo oo kale ayaa waxay u dhaxaysay markii suxuurta afka laga qaaday iyo sulxigii oo dhashay markii loo jeeday intaas u dhaxaysay